Assalaamu calaykum daawadayaal. Muuqaalkeenan maanta waxaan ku sharxi doonaa filim khayaala oo lagu magacaabo Swiss Army Man. Filimkuna waxa uu ku bilaabmayaa sidan. Fadlan daawo oo ka taxadar. Hank Thompson waa nin ku go'doonsan jasiirad ku taalla badweynta Pacifica, kaasoo bedel-raashay daraasiin fariimo ah oo uu ku dalbanayo badbaado, kuwaas oo uu ku dul xaray dhalooyin iyo doonyo yaryar oo qashin ka samaysan. Maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo gaajada iyo kalinimada ka daalay, ayaa waxa uu go'aansaday inuu isdaldalo. Markii uu damcay inuu isdaldalo, waxaa si lama filaan ah u arkay nin badda xilligeeda biyuhu u soo saareen, waxaana uu go'aansaday inuu soo eego bari inuu nool yahay in kale. Balse dhaqdhaqaaqii uu sameeyey waxaa si dhaqso ah ugu roray xadhiggii, waxaana uu ku dadaalay inuu iska furo ilaa xadhiggii ka go'ay. Hank waxa uu dul tegay ninkii, waxaana uu hoos u cabbeeyey laabtiisa si uu u eego inuu nool yahay, balse falcelinta uu ka helay waxay noqotay soo saaridda neef gaas ah oo xun oo uu qudhunku sababay. Isagoo oo dareemaya niyad jab, Hank waxa uu go'aansaday inuu la baxo suunka ninka dhintay si uu mar labaad isugu dayo inuu isdaldalo. Nasiib darro, laakiin kama caawin karo ninkan bakhtiga ahi inuu mar labaad ka mashquuliyo ficilkan. Markiiba mawjadaha baddu waxa ay qaadeen ninkii bakhtiga ahaa, isagoo weliba sii daynaya gaas xad-daaf ah. Hank waxa uu helay fikrad, waxaana uu u cararay dhanka ninkii, isagoo oo qoorta u geliyay xadhiggii isla markaana guudka ka fuulay si uu uga gudbo badaha sida jet ski-ga. Kadib markii uu fuulay xawaaraha uu ku soconayay ninka bakhtiga ahi, ayaa Hank waxa ay ka dhigtay mid badda gunteeda ku dhaca, isla markaana miyir beela. Saacado yar kadib, waxa uu toosay isagoo badda xilligeeda yaalla. Helitaanka uu helay bac yar oo cunto ku jirto ayaa waxa ay Hank ka dhigtay mid noloshiisa farxad gelisa. Waxa uu la soo baxay taleefankiisii, wuuna shiday, balse ma hayo wax signal ah, waxaana uu bakhtiyey dib si uu u kaydsado dabka beteriga. Hadda waxaa la gaadhay waqtigii uu Hank geli lahaa kaynta si uu u helo caawimaad, balse waxaa la xumaatay inuu cidlo kaga tago ninkan bakhtiga ah markii uu badda kaga soo gudbay kadib. Markan Hank waxa uu bilaabay inuu tuurta ku qaado ninkii. Markay kaynta ku sii fogaadeen, Hank waxa uu bilaabay inuu faqo qashin ay ka tageen aadanuhu, taasoo la macnaha inay u socdaan dariiqa saxda ah. Wuxuu ka dhex helay qashinkii jaakad iyo majallad isboorti ah, sidoo kale dabool quraaradeed oo uu ka dhex helay waxa uu geliyey dabada ninka bakhtiga ah si uu u joojiyo urta iyo gaasta xad-dhaafka ah ee xagga dambe ka socota. Markii uu habeenku dumay, waxaa bilaabmay roob, waxayna galeen god hoostii. Kadib Hank ayaa dabadda ula baxay koob si uu biyo u raadsado. Ugu dambayn Hank waa uu seexday. Subaxii markii uu toosay, Hank waxa uu arkay xayawaanka loo yaqaano rakuunka oo dhuuqaya afka ninka bakhtiga ah si uu u cuno, balse Hank waa uu ka soo gaadhay. Markii uu waayay wax horumar iyo caawimaad ah, hadda waxa uu go'aansaday inuu iskaga tago ninkan bakhtiga ah, balse markii uu ka dhaqaaqay, waxa uu dib u soo jaleecay ninkii, waxaana uu ku war helay biyo afkiisa ka soconaya, waxaana uu u dhigay koob. Waxaana uu naftiisa ku qasbay inuu cabbo biyaha isagoo iska indhatiraya dhadhankooda, waxaana uu u baahday biyo kale, waayo waxa haya harraad daran. Waxa uu isku dayay inuu bushkareeyo laabta ninka si uu uga dhammaysto baahidiisa biyood. Kadib markii uu ka soo daayay biyo badan, waxa uu bilaabay ninkii inuu sameeyo sanqadho isagoo u isticmaalaya sanqadhahaas sidii hab neefsi oo kale. Kadib Hank waxa uu go'aansaday inuu ugu yeedho ninka bakhtiga ah Manny, waayo waxa uu muuqdaa mid soo noolaanaya hadda. Hank waxa uu jiiday carabka iyo laabta ninka uu la baxay Manny, isaga oo rajaynaya bal inuu la hadlo, balse ma dhicin. In yar kadib, Hank ayaa maqlay Manny oo isticmaalaya erayo habboon. Hank ayaa soo booday isla markaana ka naxay oo feedhay, isaga oo uga cararay dhanka isla markaana la soo noqday ul weyn si uu isaga difaaco haddii uu u baahdo. Si kastaba ha ahaatee, Manny weli ma dhaqdhaqaaqi karo, keliya afkiisa ayuunbaa shaqaynaya. Sidaa daraaddeed, Hank khatar kuma noqon karo, isla markaana ma hubo Hank inuu yahay arrinka ninkani mucjiso ama ay sababtay gaajo daran, balse waxa uu ku faraxsan yahay inuu hadda leeyahay saaxiib. Xataa haddii aanu Manny xusuusan noloshiisii hore, fahmayna mawaadiicda aasaasiga ah ee nolosha aadanaha. Kadib Hank waxa uu afka ka siiyey xoogay cunto ah si uu uga keeno xusuus. Sidoo kale Hank waxa uu bilaabay isticmaalka qashinka ku firirsan kaynta si uu u baro Manny wax walba oo ku saabsan bulshada bani'aadamka.
Hank waxa uu uga baxay godkii dibadda si uu u helo mar kale signal. Intii uu ku mashquulsanaa Hank signalka, waxa uu Manny ku dhaygagay sawirka gabadh ku sawirnayd majalladii isboortiga ahayd ee ay ka heleen kaynta, laakiin ma fahmayo ujeedada. Intaa kadib, Hank waxa uu bilaabay inuu u sheego Manny sheeko jacayl ah oo uu ka sameeyey gabadhan ku sawiran majalladda. Kadib Manny waxa uu bilaabay dhaqdhaqaaq. Hank waxa uu ogaaday in arrintani aanay sii jiraynin haddii uu qaado majalladda, balse arrinta muhiimadda leh ayaa ah haddii Hank uu jiido Manny, in dhaqdhaqaaqa gumaarkiisu samaynaya uu tilmaamayo isla jihadii markii hore, taas oo macnaheedu yahay in loo isticmaali karo jiheeye ahaan. Hank ayaa ula dhaqaaqay jihadii Manny, taasoo laga yaabo inay tahay jihada saxda ah ee ay uga dhaqaaqi karaan kaynta. 2 saacadood kadib, Manny waxa uu joojiyey dhaqdhaqaaqii. Markaa Hank waxa uu Manny u sharaxayaa tafaasiil dheeraad ahna ka siinayaa xidhiidhka bani'aadamka. Daqiiqada kadib, Hank oo dhabarka ku sida Manny isaga oo sahaminaya kaynta ayaa waxa uu ku simbiriirixday hog qashin qub weyn ah. Markuu dhacay kadib, waxaa ishaday taleefankiisii. Sidoo kale waxaa jira shanqadh iyo guux ka imanaya dhanka geedaha, isla markaana ay sababi karto baaxadda qashin qubkan weyn ee ay ku dhex jiraan. Hank waxa uu u malaynayaa in wax weyn oo khatar ahi ay jiraan. Marka uu maqlo inay soo dhowaatay sanqadhu, waxa uu isku dayayaa in ay cararaan. Nasiib darro, waxay ka soo dhaceen meel taaga ah, taasoo sababtay in Manny iyo Hank ay dhulka iskula dhacaan, isla markaana sababtay in uu Manny arko sawirka gabadh ka muuqata iskriinka taleefanka Hank oo isna ka soo dhacay jeebka. Isla markaana waxa uu bilaabayaa dhaqdhaqaaqii. Hank ayaa degdeg u qaaday taleefankii, isla markaana baktiyey si uu dabka bateriga u kaydsado. Laakiin Manny ayaa ka codsaday inuu mar kale tusiyo sawirka gabadha, lagana yaabo in ay ka caawiso xusuustiisii, isla markaana uu taleefanka leeyahay isagu. Laakiin Hank waxa uu isku dayay isticmaalka qashinka iyo dharka googo'an ee yaalla kaynta, isagoo isu ekaysiinaya sawirka gabadha. Markan Manny waxa uu u hadlayaa si fiican, isaga oo tilmaamaya Hank inuu u muuqdo mid qurux badan. Kadib Hank waxa uu qorsheeyey in uu dhiso bas uu ka sameeyey qashinka kaynta, isla markaana uu u ekaysiiyey ka ay gabadhu saaran tahay marka ay ka muuqato iskriinka taleefanka. Kadib Hank waxa uu barayaa Manny sida gabdhaha loola haasaawi karo, ayna fiicnaan lahayd haddii jacayl dhex mari lahaa gabadhan iyo isaga. Hank waxa uu sheegay Manny in aanu gabadhan weligii la hadlin, laakiin sawirkeeda uu hayo. Hank qorshihiisii waa uu shaqeeyey. Mannyna waxa uu bilaabay inuu xusuusto gabadhan magaceeduna yahay Sarah Johnson. Taasi waxay siisay Hank yididiilo, waxaana uu mar labaad bilaabay inuu sameeyo qaybo kale oo ku saabsan haasaawaha, filimada iyo xafladaha, isaga oo u labisanaya sidii gabadhii uu xusuustay Manny oo kale ee Sarah Johnson. Waxa ay hindisaha arrimahani keentay inay isku xidhmaan oo ay xataa bilaabaan in ay gacmaha isqabsadaan mararka qaarkood. Intaa kadib, Hank waxa uu ka faa'iidaystay awoodaha u khaaska ah Manny, isagoo u adeegsanaya gaaska afkiisa ka soo baxaya inuu iskaga difaaco xayawaanada soo weeraraya habeenkii. Ugu dambayn, Hank waxa uu go'aansaday in ay ka gudbaan webi kaynta ku dhex yaallay. Sida qura ay kaga gudbi karaanna waxay tahay in ay isdul fuulaan, isla markaana ay raacaan beeb webiga dulmara, una adeegsadaan sidii bridge oo kale. Balse aad bay khatar u tahay. Hank waxa uu soo saaray taleefankiisa, isaga oo tusaya Manny sawirkii gabadha si uu dareenkiisa u dhaqaajiyo markaan. Kadib Hank waxa uu ku xidhay dhabarkiisa Manny si ay uga gudbaan webiga, isaga oo la gurguuranaya. Balse si lama filaana waxa uu la jabay beebkii ay raacayeen, wayna ka laalaadsameen iyaga oo ay qabsadeen maryihii isugu xidhnaa qayb beebka ka midi. Manny waxa uu dareemayaa cabsi markii ugu horreysay, maxaa yeelay haddii uu dhinto Hank waxa uu u malaynayaa in uu tabayo. Ugu dambayn, waxaa jabtay birtii haysay waxaanay ku dhaceen webiga. Manny waa uu quusay, dabeetana waxaa ku dhalatay Hank inuu ka saaro daboolkii uu ka geliyey xagga dambe si uu u soo daayo gaaskii si ay u badbaadaan. Waa uu ku guulaystay, waxaana uu soo daayay Manny gaaskiisii, waxayna u soo baxeen xilliga webiga. Mar labaad Hank waxa uu isku dayay in ay beebkii dib ugu noqdaan,
isaga oo ka faa'iidaysanaya awoodaha Manny. Waanay u suura gashay. Waxaanay u tallaabeen dhinaca kale. Markii habeenku dumay, Hank waxa uu isticmaalayaa gaaska ka imanaya xagga dambe ee Manny isaga oo dab ka shidaya si ay xayawaanada isaga difaacaan. Kadib waxa ay galeen falaqayn dheer oo ku saabsan nolosha iyo inay ku sii sugnaan karaan kaynta iyo in kale. Kadib Hank ayaa dhinaca u dhaqaaqay isaga oo taleefanka signal ka raadinaya, waana uu helay. Waxaana uu galay social media isaga oo ka baadigoobaya gabadhan la yiraahdo Sarah Johnson. Waana uu ka helay isaga oo sii baadhay sawiradeeda khaaska ahna waxa uu ogaaday in ay leedahay nin lagu magacaabo Presto, ayna u dhashay gabadh lagu magacaabo Chrissy. Markii uu soo noqday Hank isaga oo dareemaya inuu dambi sameeyay, waxa uu qirtay inuu isagu leeyahay taleefanka, isla markaana Sarah ay tahay inan uu ku dhex arki jiray baska marka uu saaran yahay mar walba, isla markaana uu u qaaday jacayl, laakiin aanu weligii la hadlin. Falaqaynta gabadha kadib, Manny waxa uu sheegay Hank inuu ku soo wajahan yahay xayawaan. Isla markiiba waxa naxay Hank, waxaana dhulka ku dhacay taleefankiisii. Waxaana uu go'aansaday inuu isticmaalo awoodaha u gaarka ah Manny, balse Manny ma awoodo inuu gaaskiisii soo daayo. Waxaana lumisay awoodiisa aragtida sawirka gabadha ee ka muuqata taleefanka Hank oo dhulka yaala. Waxaana uu jiitay bahalkii Hank, calaaliyeyna lugtiisa, balse Hank waxa uu gacanta la helay qori daba, halkaas baanu iskaga dhiciyay bahalkii. In yar kadib waxaa soo noqotay awoodii Manny, waxayna fuuleen dhirta dushooda. Markii uu waagu baryay, Hank waxa uu doonay in ay u baxaan dhanka aadanuhu joogo, oo si lama filaan uga soo baxay kayntii, isla markaana u soo baxay dhanka guriga Sarah Johnson oo kaynta u dhow. Waxaana aragtay gabadha ay dhashay Sarah ee Chrissy, isaga oo Manny u sheegay inay ka soo baxeen kaynta una baahan yihiin caawin, balse Manny ayaa haddana isku dayay inuu awoodihiisa tusiyo Chrissy, waanay oyday. Sarah Johnson ayaa maqashay oohinta, isla markaana dibadda u soo baxday, iyada oo labada nin u aragtay in ay khatar yihiin, balse Chrissy ayaa hooyadeed u sheegtay in ay labada nin caawin dalbanayaan. Intaa kadib, Sarah Johnson ayaa guriga ku noqotay, isla markaana wacday booliska. Kadib booliska ayaa meesha yimi. Manny waa uu dhintay intaa kadib. Booliska waxay heleen taleefanka Hank iyaga oo u malaynaya inuu leeyahay Manny, waxayna garaaceen aabbaha Hank. Waxayna u sheegeen inuu inankiisii dhintay, balse markii uu yimi aabbaha dhalay Hank waa uu iska qariyay. Kadib Hank waxa uu u sheegay saxaafadda oo su'aalo weydiisay inay askartu isku qaldeen dhalashadooda, isla markaana uu nool yahay. Kadib waxa uu dul yimi meydka Manny isaga oo u jiiday dhanka kaynta iyo webiga. Kadib waxaa soo dabagalay booliska iyo xubnihii kale ee meesha joogay oo ay ka mid tahay Sarah Johnson. Sarah waxa ay kaynta ku aragtay wixii Hank uu sameeyay oo dhan, xitaa inuu sameeyay buugga ay isticmaalayso marka ay taleefanka ku jirto. Intaa kadib booliska ayaa isku dayay in ay soo xidhaan Hank. Markii ay soo qabteen kadib, meydka Manny ayaa bilaabay inuu sii daayo gaas xad dhaaf ah, wayna ama kaageen, isla markaana waxa ku noqday Hank isaga oo ku leh goodbye. Intaa kadib Manny waxa uu raacay biyaha webiga isaga oo dhoola cadaynaya. Haddii aad xiisaynayso filimada noocan oo kale ah, fadlan subscribe saar channelka, siina share garee muuqaalka. Mahadsanid daawade.